بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا ونايسان دمان باخيارتها ودا نغا دغيسانيسا halka nagala socotaani waa ogaal radio mowjada dhererkeedii kun 320 AM iyo waliba idinkoo nagala socdo caalamka intiisa kale shabakada ciwaankeedu yahay www.radioogaal.com waa maalin axada oo bisha Juun ay tahay 22 sanadkan 2008 gooraysaduna haatan waxay ku taagan tahay 9 fiidnimo oo buuro ah taasi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa maanta bisha Juun ay tahay 22 sanadkan 2008 Abu Dhabi ku geeriyooday naxariistii janno Allah ka waraabiye Sheekh Ibrahim Abdullahi Maah oo ahaa gudoomiyihii hore ee jabhadda ONLF anigoo ku hadlaya magaca ogaal radio dhammaan wariyaasha iyo shaqaalahaba waxaan tacsi u diraynaa eheladii qaraabadii xigtadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ka baxay halgamaaga weyn ee Sheekh Ibrahim Abdullahi Maah haddaba haddaan dib u jaleeco taariikh nololeedkiisii oo kooban Sheekh Ibrahim Abdullahi Maah waxa uu ku dhashay Qalaafe sanadkii 1941 wuxuu waxbarashadiisa ka bilaabay Ogaadeniya kadibna wuxuu tagay Yaman oo uu uga sii gudbay Sacuudi Arabiya waxbarashadiisa dugsiga sare waxa uu ku dhamaystay Sacuudi Arabiya sanadkii 1970 wuxuu ka qalin jabiyay jaamacadda Imaam Maxamed bin Sacuud ee Makka al-Mukarrama ee dalka Sacuudiga sanadkii 1973 wuxuu macallin ka noqday dugsiyada sare ee Soomaaliya Hargeysa sanadkii 1981 wuxuu noqday wakiilka jabhadda WSLF ee Imaaraadka naxariistii janno Allah ka waraabiye Sheekh Ibrahim wuxuu kaloo ka mid ahaa golihii dhexe ee jabhadda WSLF Sheekh Ibrahim wuxuu ka mid ahaa aasaasiyaashii jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee aasaasay 1984 sanadkii 1991 waxaa loo doortay gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ee ONLF shirweynihii koobaad ee dalka Ogaadeniya lagu qabtay wuxuuna xilkaas hayay ilaa iyo 1998 intaas kadib Allah u naxariistay Sheekh Ibrahim wuxuu ahaa xubin golaha dhexe ah wuxuuna abuuray 1999 macadka daraasaadka istiraatiijiga ee geeska Afrika oo uu ilaa iyo hadda ku hawlanaa sidii uu u hirgelin lahaa macadkaas oo uu ugu talagalay inuu qadiyadda Ogaadeniya u adeego Sheekh Ibrahim wuxuu ahaa qoraa sare wuxuu qoray kitaabo iyo maqaalo tiro badan oo ay ka mid yihiin kow jabkii saddexaad ee xabashida 1982 labo fasiridda taariikhda carabi 1992 saddex fasiridda halganka Ogaadeniya 1995 afar Ogaadeniya oo hor joogsatay Itoobiya 1996 shan tuxufatal awfiya sanadkii 2001 naxariistii janno Allah ka waraabiye Sheekh Ibrahim wuxuu ahaa nin wadani ah oo Soomaali ah oo aad u aaminsan ummadnimada Soomaaliyeed qadiyadda Soomaaliyeedna heerar badan kaga soo dagaalamay Sheekh Ibrahim xoreynta Ogaadeniya waxa uu dheeraa oo uu aaminsanaa in Soomaali midowdo Allah u naxariistay Sheekh Ibrahim wuxuu ahaa hogaamiye diiday in shacabka Soomaaliyeed ee Ogaadeniya ku nool uu isu dhiibo gumaysiga cusub ee Itoobiya wuxuuna go'aamiyay halganka hubaysan ee maanta jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya hogaaminayso eebow naxariistii janno ku sii amiin Allah u naxariistay Sheekh Ibrahim wuxuu ka tegay 4 wiil iyo 4 gabdhood iyo waxay sii dhaleen waxayna kala joogaan Kenya UK USA iyo Ireland gesiga dhulkiisa usha u horseeda gerida dishaay geedka habo
waxaa kaloo tacsidan diraya dhammaan jaaliyadda ogaadeeniya ee ku nool waddanka Canada waxayna tacsi u dirayaan dadka reer ogaadeeniya gaar ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday naxariistii janno allaha ka waraabiye marxuum sheekh ibraahim sheekh cabdullaahi maax oo ka mid ahaa aasaasayaashii ururka jabhadda waddaniga xoraynta ogaadeeniya ee ONLF isla markaana ahaa guddoomiyihii hore ee ururka waxaana tacsidan diraya maxamed macalin cabdiraxmaan yuusuf maxamed cumar caydiid cabdi miraad layli maxamed tube qamaan cabdullaahi caydiid qarboosh maxamed shaqlane faarax ismaan gaab cumar ismaaciil maxamed daha faarax mahad cabdi khaliif shaywaal cumar khaliif shaywaal garaad maxamed dhaqane maxamed cumar najiib cabdiqani sheekh qaasim xasan cali bulxan jamaal bashiir maxamed xuseen suldaan maxamed cali xukun gaas xaruur mukhtaar sheekh maxamuud bookh maxamed askar saxardii ducaale maxamed cabdulqaadir cabdi xuseen buraale saciid mawsar carays mawlid cabdi axmed cabdulaahi raas cabdinaasir nadiif cibaade xaaji xaawo khaliif xaliime xirsi dhuub xalimo shilaabo aamine cadare ruqiye maxamed kaba jecel muumine faarax iyo ayaan bayna gesiga dhulkiisa gusha u horseeda gerida dishaay gedka habo ugabraaratada umaysigu ku dhunta galabtada humaalka gedoodabo